وهاجي غيرتنا داوانيساي waxaad naga daawanaysaan telefishinka dalsan waxaan idin kala soo hadlaynaa oo aan joognaa gurigii aan ka sameynay warbixinta ku saabsanayd qoyska aabahood oo ka maqnaa muddada laga joogo 10 sano maanta halkan aan joogno waxa ka jirta dareen farxad iyo jawi ka duwan kii maalmo ka hor halkan aad ku ogeydeen waxaan eegi doonaa dareenka farxadeed ee maanta ay wada dareemayaan qoyska halkan warbixinta aan uga sameynay iyo aabahood mahadcelinta iyo farxadda reerkan ka muuqata ayaa timid kadib markii 9kii bishan uu TV-ga dalsan warbixin ka sameeyay qoyskan oo muddo 10 sano ah ay kala maqnaayeen aabahood hooyadii soo siinay Bashii Cabdi la dhahay abootada haddana gacan kuma haayo alaha soo dad hadday la maqlaayaan qofta aan qof cidi garaheeso hana la soo xiriiraan baaqaas damqashada leh kadib waxaa saaxiibada ku xiran dalsan TV ay duco iyo dadaalba ay la garab joogeen qoyskan iyo sidii ay isku heli lahaayeen inkastoo dad badan ay arintan dadaal u galeen haddana alla ka sokow dadka arintan suuro galiyay waxaa markaasi ka mid ah Saxane Xasan oo qaraabo ay yihiin aabaha reerkiisa ay kala lumeen oo ah qofka macluumaadkiisa aan ka tixraacnay natiijadana ay ka dhalatay sidoo kale dad Soomaaliyeed oo ka damqaday dareenka caruurtan ayaa si joogto ah inoola soo xiriirayay kuwa oo codsanayay in ay qayb ka noqdaan saacidaadda caruurta iyo hooyada dhashay baahinteena sheekadan maalin kadib ayay suuro gashay in ay qoyskan ay ishelaan waxaana aabe Cumar Cabdi Cali Shinyare oo isaga oo nabad qaba hadda uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida qoyskiisana waxa uu inoo sheegay in hadda ay degan yihiin halka la yiraahdo Baabili wax yar kadib markii xabsiga Sacuudiga laga sii daayay ayuuna ku laabtay halkaasi intaas baadi goob ayuu sheegay in uu ugu jiray caruurta iyo hooyada dhashay ee ka maqan nimco qofkan yaa waay Cumar Cabdi Cali Shinyare haye Cumar adiguna qofkan ma taqaanaa walaal waan aqaanaa nimco caruurteeda iyo aabahood dareenka maalintii hore iyo maanta waa u kala labo waa ikara Cumar waan fiicanahay sayda adigu khayr wallahi yaxaa kugu dhac maba noolaaba isleeynay ما في عند أبو خير أيوة في عند أبو وانكوي من أبو وانديني من إن شاء الله وانديني من أبو مرة ثانية ديناركو نوي ما أبو maalin kadib sida uu yahay dareenkooda ayaan weydiiyey nimco iyo caruurteeda qadro maalin hore aabaha ayaa codsatay inaad hesho maantay ka waran dareenkaagu waa sidee farxad waa maadaama aabahan helnay waa ku faraxsanaan dalsan TV oo hel إلهي الله كفر سفي أنا أغفر أحسن أنا ما دام عرورت أبهات الله هلا هذه فرحة أموجهنا دلسن تيبي وأمهد عليهنا هي شغالة هذا كله وأمهد عليهنا waayahay dareenkaaga oo maalintii warbixintan aan ka sameynay iimaanta ka war maanta aad ugu sii fiican nahne rajadaadu ma ahayd in mar un sidaan ay dhacayso saanay ahayd rajadeedina aad ugu faraxsanaa Cumar Cabdi Cali Shinyare oo ah aabaha caruurtiisa iyo hooyadood ay kala maqnaayeen 10 sano oo isaguna u waramay TV-ga dalsan isagoo hadda jooga magaalada Jigjiga ayaan weydiiyay waxa marxaladda uu hadda ku jiro uu ku qiyaasi karo magacayga waxa la dhahaa Cumar Cabdi Cali Shinyare baa la dhahaa marka waxaan ku hore dareenkaygu maanta waa dareen aad u wanaagsan marka ciyaalkaygii waxaan ku hore 10 sano ka hor aan ku kala lunnay waxaan ku hore magaalada Riyadh oo waxaan ku hore lagu qabtay annaga joogo shaqo ahaan halka maantana waxaan ku hore alxamdulilaahi rabbil caalamiin dareenkaygu waxaan ku hore dareen aad u wanaagsan buu ahaa 100% waan faraxsanahay ciyaalkaygaasi maanta waxaan ku hore dalsan TV ba ayaa waxaan ku hore isku raadisay oo waxaan ku hore aan isku helay alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta oo dhan baan wada sheekaysanaynay haween iyo ka yarba macluumadoodii ayagoo waxaan ku hore iska caafimaad qaba markaas saasay ahayd waxaan ku hore aad baan u wacanahay maanta waxaan ku hore waa cusub anigu xaggayga ii bariyay waxaan ku hore macal eheladeydii waxaan ku hore farax waxaan ku hore waxay ku jiraan waxaan ku hore wax aad u wanaagsan oo waxaan ku hore la soo koobi karay
walaalaha nimco ku garab taagnaa korriimada carruurta ayaa iyaguna nala wadaagay maanta waxa ay dareemayaan. haddana muraadka aan lahayn aan ka gaarnay oo ilmihii aabbahood la helay muddo 10 sanana naga maqnaay maasha allah. Dalsan TV waxaan ka baahinay gabadhan walaasheeya nin 3 cunug oo way u dhashay ayay ka baafinay. ilaahay amuurtiisa qadarta allana waxay ku heleen muddo 3 maalmood. ma haddana waxa iska leh Allah leh iyo Dalsan TV oo nala dadaashay oo nala qabatay hawshan iyo arintan ilaahayna la garab galay una fududeeyay si aabahood ilmahan loogu helo. waalidiinta iyo carruurtooda muddada kala maqnaa ayay tani uga dhigan tahay nabar sanado badan harsi iyo hoyaadba u diiday balse hadda ka fuqay. nimco hadda waxa ay noqotay xaas. cumar dabadii waxa ay dhashay 3 carruur ah oo mid ka mid ah uu ka saqiiray. dhinaca cumar nimco kadib isaguna waxa uu yeeshay xaas hadda u haysa 5 carruur ah. cumar shin yare waxa uu intii reerkiisa uu ka maqnaa uu soo noqday duqa magaalada la yiraahdo Xogasha oo ka tirsan gobolka Faafan ee dhulka dowlad deegaanka Soomaalida balse hadda waa shakhsi caadi ah oo ka mid ah reerkiisa. waayahay qoyska halkan jooga maanta waxay ka duwan tahay marxaladii ay ahayd maalmo ka hor markii halkan aan imaanaynay. maanta waxay heleen aabahood oo hadda aad arkaysaan in qadka uu ku jiro isla markaana dhammaantood uu wada arkayo. dareen ahaan waxaad ka dheehan kartaan siday u faraxsan yihiin oo waxa ay heleen aabahood. dareenkooda ayaa waxa uu yahay mid aad u sareeya. maxamed cabdi xasan iidle, Dalsan TV, Muqdisho.